بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وعدرسنا عاو كبلاب مياه آيات بقول إيا لبيا أفرتناد وحنو كتشوغا آيات بقول إيا سقالي اللحدناد سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى آيات كان وحوك ورميا تحويل القبلة وكيف قابلها اليهود وغيرهم من السفهاء wareejintii qiblada laga soo wareejiyay baytul maqdis ee loo soo wareejiyay kacbada iyo sida nimankii yahuudeed iyo kuwii kale ee wax magaratada ahaa ay arintaa uga hor yimaadeen سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها waxa alla uu tilmaamo uu ka sii waramay marka qiblada loo soo wareejiyo xagga kacbada waxay oran doonaan taasina waa mucjizo tilmaamaysa rasuulnimadii nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam xaqnimadeeda iyo xaqnimada quraanka waayo waxaan dhicin buu ka waramay siduu uga waramay baanay u dhacday qiblada iyo wareejinteeda masaa'ilka ku saabsan ilaahay markuu aayaadkan kaga waramay waxa kaloo aayaadka Allah uu ku tilmaamay kitmaanu al-yahuudi lil-haqqi fi sifati ar-rasuul sallallahu alayhi wa sallam nimanka yahuudeed inay qariyeen xaqi ku yaalay tawraad oo tilmaamihii nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam iyagoo garanaya oo aqoon iyo cilmi u leh ayay haddana u badheedheen inay beeniyaan wa inna alladhiina uutul kitaaba la ya'lamuuna annahu al-haqqu min rabbihim wama allahu bighafilin amma ya'maluun wa la in atayta alladhiina uutul kitaaba bikulli aayah ila aakhir al-aayat waxa kaloo aayaadkan ku sugan وجوب التوجه إلى الكعبة في الصلاة والحكمة من ذلك واجب نمدا أي واجب تهي صلاة دحديدا إن لو تشيدسدو حق كعبة هي حكمة أرنتا كجرته ودور تير لغسو العليي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحكى الله tilmaamay xikmada ku jirta in la amro inay kacbada u jeedsadaan لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم وسئان حجة ليدinku helin iyo wax laydin kaga gar helo ama xujo iyo gar u eg si aan loo helin waxa kaloo aayaadka ku sugan الصبر وجزاؤه وأنواع الابتلاء صبرك iyo abaalmarinta laga helayo iyo noocyada imtixaanka ilaahay adoomadiisa uu imtixaamo يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وحلت المام أنواع الابتلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وحكلوا آياتك كسغا وجوب السعي بين الصفا والمروة واجب نمدا أي واجب تهي وأي كم تهي بأركان حجك يا عمرضا in la sacyo oo lagu wareego safa iyo marwa dhexdooda
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. waxaa kaloo aayaadkan ku sugan cuquubatu kitmaani alcilmi wa xukmu man yamuutu cala alkufri. cuquubada waxaan u jeedaa xaaraannimada ay xaaraan tahay iyo cuquubada ka dhalanaysa xaqa in la qariyo iyo cilmiga iyo cidda gaalnimo ku dhimata abaalkeeda iyo hoygay u hoyanaysaa halka uu yahay. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إلى آخرها. وعكلوا آيات كسغا وحدانية الله تعالى ومظاهر قدرته، waaxidnimada rabbi iyo muuqaalada waaweyn ee astaanta iyo daliilka u ah ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa iyo waaxidnimadiisa. wa ilaahukum ilaahun waaxid laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim. ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaar ilaa aakhiri alaaya. waa makhluuqaadka waaweyn ee astaanta iyo daliilka u ah ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa kaamilka ah. waxaa kaloo aayaadka lagu tilmaamay anna min ashirki alxubu maca allah, inay shirkiga ka mid tahay ilaahay cid kale in lala jeclaado sida alle loo jecel yahay oo kale, oo maxabada cibaadada ah ee tacdiimka iyo weynayntu ay ku dheehan tahay ilaahay cid kale in lala wadaajiyo. waxaana culimmadu yidhaahdaan waxaa farqi u dhexeeyaa waxa uu farqi u dhexeeyaa alxubu maca allah waalxubu fi llah. in ilaahay wax lala jeclaado lala simo xagga maxabada iyo yacni jacaylka tacdiimka xambaarsan, iyo ilaahay dartii in wax loo jeclaado liajli illaah. marka alxubu fi llaahi walilaah waa cibaado ilaahay loogu dhowaado ajar iyo abaalna laga helo. waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi awthaqu cura aliimaan alxubu fi llaahi waalbugdu fi llaah. guntimaha iimaanku uu ka kooban yahay kuwooda ugu adag ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ilaahay dartii oo wax loo jeclaado, dartiina wax loo naco, oo jacaylkaaga iyo nacaybshahaaga aada ku salayso lilaahi wa fillaah, ilaahay dartii ee dan kale aanad ku salayn. laakiin alxubu maca allah waa kii mushrikiintu ay samaynayeen ee lagu tilmaamay wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illaah waaladiina aamanuu ashaddu xuban lilah. waxaa ka baxaya xubbigaa shirkiga ah xubbiga dabiiciga ah ee basharka ku beeran, ee dee ubadkiisa iyo ooridiisa uu jeclaanayo. waxaa la yidhaha waa maxaba dabiiciya, waa kalgacal dabiiciya oo caado ah oo basharkao dhan ku beeran. laakiin xadkaa dabiiciga ah waa inaanu ka gudbin oo aanu dhaafin, oo aanu gaadhin heer uu maxabada ilaahay la simo ama uu ku xadgudbo oo dabarka uu ku goosto uu ku dambaabo, waa inaanay gaadhin heerkaa. laakiin kalgacalka uurka ugu jire uu ku beeran yahay ubadkiisa iyo ooridiisa iyo wixii la mid ah dee maaha shirki. kadib alla waxa uu tilmaamay xaalu lmushrikiina wamasiiruhum yowma alqiyaamati atbaacan wamatbuuciina. nimanka mushrikiinta ah xaalkooda iyo arrinkoodu qiyaamada sida uu noqonayo madax iyo mijaba. walow yara aladiina dalamuu id yarawna alcadaaba ana alquwata lilahi jamiica wa ana allaha shadiid alcadaab ila aakhiri alaayaat. aayaadka u dambeeya waxaa ku sugan
وجوب الأكل من الحلال والاجتناب عن الحرام ووجوب اجتناب خطوات الشيطان واتخاذه عدوا waajibnimada ay waajib tahay in wax laga cuno oo la adeegsado wixii xalaal ah ee tayyib ee wanaagsan in xaraan ahayn iyo inay waajib tahay in xaraanta laga dheeraado oo aan loo dhawaan agteeda la marin iyo waajibnimada ay waajib tahay shaydaanka wadooyinkiisa in laga dheeraado la marin waayo foolxumo iyo macsiyo ayuu ina faraya يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله حول سبحانه سيقول وحي أرندونان السفهاء كوي وحمقرتد أهاء من الناس دتك كمده ما ولاهم محاكا جيدية بي أرندونان كوان مسلمين تا عن قبلتهم قبلة دودي التي قبلة داسو كانوا أي أهاين عليها أي على استقبالها قابلة دا أي قابل أيان قبلة دا يهرأوا قصقنايين محاكا سو جيدية معناها بيت المقدس محاكا سو جيدية كعبة دا أسو جيدية أي أرندونان marka Allah waxa uu tilmaamayaa kuwa yahuuda iyo munaafiqiinta iyo mushrikiinta carbeed oo lagu tilmaamay wax ma garato iyo dhicaaful uqul inay yihiin inay oran doonaan marka nabiga loo soo wareejiyo xagga Kacbada maxaa qibladoodii hore ka soo jeediyay inay oran doonaan qibladana in baytul maqdis laga soo jeediyay oo loo soo jeediyay Kacbada waa nooc ka mid ah anwaacda naskhiga quraanka dhexdiisa ka dhaca ee waxa weeyaan la nasakhayo oo ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha marka sunnada ayay ku sugnayd inuu baytul maqdis u jeedsan jiray marka quraankuna quraan waa naskhi karaa quraanna sunnada waa lagu naskhi karaa marka jeedsigii hore ee baytul maqdis uu jeedsan jiray waxa lagu nasakhay inuu u soo jeedsaday Kacbada oo la amray inuu Kacbada soo qaabilo marka waa nooci aw mithliha waxaanu nasakhna amaanu ku ilowsiino waxaanu la imanaynaa wax ka khayr badan ama salamida marka waa imika mid la mid ah min qiblatin ila qibla baytul maqdis baa laga soo jeediyay Kacbadana waa loo soo jeediyay سيقول وحي أرندونان السفهاء كوي وحمقرتدها أو من الناس دتك كمده ويهودية منافقين تي مشركين تي عرباده ما ولاهم محا مسلمين تكسو تشيدية بي أرندونان عن قبلتهم قبلدو دي التي قبلدا سو كانوا أيهاين عليها على استقبالها قابل دي أي كدل سقنايا وبيت المقدس قل waxaad ku tiraa nabi maxamedow lillaah alla ayay u sugnaaday lillaahi alla baa iska leh oo u sugnaaday al-mashriqu jihada bariga cadeedu ay ka soo baxdo iyo wal maghribu jihada galbeedka cadeedu ay u dhacdo labadaba alla iska leh waxa lagaga kinaayoonaya jihooyinko dhan alla inuu leeyahay oo kol haduu bari iyo galbeed mulkiyo inta kalena waa mulkiyaa u dhaxaysa yahdi wa hanuuninaya alla man yashaa cid uu doono ay hidaayatahu cid hanuunkeeda uu doono alla wuxuu ku hanuuninayaa ila siraatin jid xaqiibu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan macnuhu marka waxa weey kol haduu ilaahay jiha walba u leeyahay isaga ayaa dhinuu doona u jeedinaya oo lillaahi al-amru min qabl wa min ba'd ruuxa muuminka ana uma cunanto inuu ilaahay de ka hor yimaado ila muxuu sidaa u sameeynaya waayo waa bi amri illah isna waa adoon alle qofka alla rumaysani ka kala sidee waa ka hor imanaya
alla waxa uu yihi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata marka culimadu waxay yidhahdeen madiine markuu usoo hijrooday ee 16 bilood ilaa 17 bilood uu baytulmaqdis qaabilayay isagoo niyadda ka jeclaa nebigu in loo jeediyo xagga kacbada ayaa dee waxa weeyaan la nasakhay baytulmaqdis inuu u jeedsado oo la amray inuu xagga kacbada soo qaabilo waana siduu niyadda ka jeclaa alla waxa uu yihi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata jalaaleynku sida uu soo qadarayo ay wakamaa hadaynaakum oo yahdi man yashaau daa ayaa tashbiiha lagu xidhayaa macnuhuna waxa weeyaan wakadalik ay wakamaa hadaynaakum sidaa aanu idiin hanooninay ee xaqa iyo kacbadaba aanu idinku hanooninaynu idinku soo jeedinay oo kale ayaa jacalnaakum aanu idinka yeelay ummatan ummadda oo wasata dhexdhexaad ah ay bayna alifraadi waltafriid yacni talaxtag iyo xadgudub iyo gaboodfal iyo gaabin midna aan samayneyn laakiin wasad ah mufasiriintu waxay odhanayaan ay khiyaaran cuduulan kuwa khiyaarowan wanaagsan oo caadiliin ah wakadalika wakamaa hadaynaakum sidaa aanu idiin hanuunina ayaanu jacalnaakum idinka yeelay ummatan ummadda oo wasata dhexdhexaad ah maxaanu idinka yeelay sidaa litakuunuu si aa u ahaataan shuhadaaa kuwa ku markhaati kaca cala annaasi dadka oo ummaduhu ambiyadooda markay yidhaahdaan waxba namay soo gaadhsiin aada maragga idinku ugu furtaan ummaddii nebi maxamed haddaa tihiin oo wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu ahaado waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam shahiida mid ku markhaati kacaya calaykum korkiina si aa idinku haddaa ummaddii nebi moxamed tihiin ummadaha kale ugu markhaati furtaan idinkana nebi moxamed idinku markhaati furo alla waxa uu yihi wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qibladii allatii qibladaasoo kunta aada ahayd nebi moxamedow calayha ay cala istiqbaaliha qaabilidda aada qaabilasa aada hore ugu dul sugnayd waa baytulmaqdise kaagamaanaan yeelin ay qiblatan qiblo kaagamaanaan yeelin ilan jacaladu laba mafcuul bay qaadanaysaa oo ka hore waa alqiblata ka labaadna usoo qadaro qiblatan marka qibladaad markii hore ku dul sugnayd waa baytulmaqdise qiblo kaagamaanaan dhigin ilaa linaclama kaasi waa tafsiir waxaa kaloo bannaan imika allatiida halkaynu qiblada kaga sifaynay inaynu mafcuulka labaadba ka dhigno oo imika markii hore waxaynu yihi wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qiblada allatii qibladaasoo mawsuulku markaa waa sifatun lilqibla laakiin waxaa bannaan in mafcuulka labaadba allatiida aad ka dhigto waxba aanad soo qadarin macnuhuna uu noqdo wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qiblada allatii tii kamaanaan yeelin marka waa mafcuulu haanigii taasoo kunta aada ahayd calayha ay cala istiqbaaliha qaabilidda aada qaabilasa taad ku dul sugnayd kaagamaanaan yeelin qiblo ilaa linaclama waxaa kaloo bannaan marka kuntada sideeda loo daayo waa tii hore baytulmaqdis ee laga soo jeedee mansuukha ah waxaa kaloo bannaan sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo qibladan la sheegaya in kacbada loo jeedo tan loo soo jeediyey ee ta hore lagu nasakhay markaa kuntadana bimacnaa anta looga jeedo macnuhuna uu noqdo wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qibladii allatii qibladaasoo kunta ay anta adigu calayhaa korkeeda aada ku sugan tahay hadda oo kunta calayhaa macnaheedu waa ay anta calayhaa qibladaada hadda ku sugantao kacbada ah kamaanaan yeelin ay qiblatan qiblo kaagamaanaan yeelin ilaa linaclama allatiiduna waa sida tii hore oo kale uunoo ama sifaad ka dhiga ama mafcuulu haani labadaba waa ku bannaanta wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qibladii allatii qibladaasoo kunta calayhaa aada ku dul sugnayd oo baytulmaqdis ah ama allatii qibladaasoo kunta calayhaa ay anta calayha alaan hadda aada ku dul sugantao kacbada ah ay qiblatan qiblo kaagamaanaan yeelin
ilaa linaclama inaanu ogaano mooyaane waa tan ciladii man axad inaanu ogaano mooyaane kaasoo yatabicu raacaya alrasuula rasuulka raacaya minman cid aanu ka ogaano kaasoo yanqalibu noqonaya huwa manku calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkooda ku noqonaya oo ridoobaya oo diintaba ka laabanaya labadaa inaan kala ogaano mooye wax kale sidaa umaanaan samayn cilmiganna maaha cilmi cusub oo alle usoo kordhaya oo ilaahay waa ogaa maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun wa acamu sifaati tacalluqan maadi iyo mustaqbal iyo wax dhacay iyo waxaan dhicinba sifada cilmigu waa koobsataa oo waa ku tacalluqaysaa laakiin waxaa loo jeedaa cilmigan waxay culimada qaar ka cabiraan cilmu duhuuri waaru'ya cilmiga muujinta iyo ru'yada oo macnaha inaanu kala muujino kala caddayno kala muuqdaan un baanu sidaa u samaynay oo dadkii baa kala baxaya oo qaarna waxay odhanayaan maxaa kolba meelna loogu jeedinayaa maxamed isagaa kolba siduu doono samaynaya waxaani diin xaqa maahe waa kuwa la fidneeye dee hallaabaya sidaasay odhanayaan oo diintaba dib bay uga noqonayaan dee kuwa hanuunsanna waxay odhanayaan waa xaq oo halkiina loo jeediyaba samcan wa taaca labadaasi loo kala muujiyo waxaa kaloo laga cabiraa alcilmu aladii yataratabu calayhi athawaabu waalciqaab cilmiga uu ka ratibmayo ama uu ka dhalanayo abaalmarinta iyo cuquubada oo ilaahay addoommadiisa kuma ciqaabo cilmiga saabiqee uu hore usii ogaa inay sidaas samayn doonaan cuquubo iyo thawaab kuma siiyo laakiin addoommada waxaa lagu abaal mariyaa ama se lagu ciqaabaa wuxuu ilaahay hore u ogaa ficil ahaan markuu u dhaco waxaa markaa culimmadu ay yidhaahdaan cilmigu waa cilmigii alle hore uun laakiin waxaa kala duwan macluumka ama shayga sifadu ugu tacalluqayo oo markii hore wuxuu ugu tacalluqay annahu sayuujad inuu dhici doono o la heli doono ayaa cilmiga alle ugu tacalluqsanaa oo ilaahay waa sii ogaa marka uu dhacana wuxuu ugu tacalluqayaa cilmiga alle annahu waqaca wa annahu mawjuudun ficla inuu dhacayba oo ficil ahaan u jiro ayuu ugu tacalluqayaa oo si kale haddaad u cabirtana waxa weeye ilaa linaclama si aanu u ogaano maa calimnaahu annahu sayuujad annahu wujid waxaanu hore u ogeyn in la heli doono u dhici doono si aanu u ogaano ficil ahaanba inuu dhacay ilan hore ilaahay waa u ogaa inuu dhici doono imikana wuxuu og yahay inuu dhacay marka labada tacalluqun baa kala duwane cilmi cusub oo usoo kordhay ma aha marka allah waxa uu ihi qibladaad hore ugu sugnayd ama taad imika ku sugan tahayba qiblo kaagamaanaan yeelin ilaa linaclama inaanu ogaano mooyaane oo macnaha kala muujino man axadka yatabicu rasuula rasuulka raacaya minman mid inaanu ka ogaano mooyaane oo aanu ka soocno ama ka muujino kaasoo yanqalibu noqonaya huwa manku calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkooda ku noqonayo oo diinta ka laabanaya macnaha waxaanu sidaa u samaynay uun si ay labadan qolo u kala soocmaan oo waaqica ugu kala caddaadaan kuwa ku sugnaanaya iyo kuwa diintaba ka siibanaya ee aan ku sugnaanayn allah waxa uhi wain kaanat lakabiiratan ila cala aladiina hada allah in waa mukhafafa min athaqiila isamkeedana damiiru shani lasoo qadaraa laga dhigaa oo wainahu ay waina alamra washa'na arrinka iyo xaalku waxa uu yahay kaanat waxay ahaatay hiya tawliyada iyo jeedsiga kacbada loo jeedsaday wuxuu ahaaday lakabiira mid weyn bay ahaato dadka ku culus ilaa cala aladiina kuwii korkooda mooyaane hada allah ay hadaahum allah ilaahay uu hanuuniyey oo damiirka kaanadda ku asturan ee isam ahaan ay u rafcinayso waxaad u celisaa tawliyada ama jeedsiga kacbada loo jeedsaday macnuhuna waxa weeyaan jeedsiga kacbada loo jeedsaday dadka waa ku cuslaa oo in badan baa qaadan kari la-ayd kuwa muuminiinta hanuunsan mooyaane oo iyaga ay u sahlanayd inay qaataan oo markaaba ay hoggaansamaan oonay ka hor iman marka waa in kaanad
إعراب بدن باكو جرى كاضمير شأن يقول إنه قادن وإن كانت أي وإن الأمر والشأن أرنك يا حالك وحياه كانت إن يهاتي هي أي التولية jeedsashada loo jeedsanayo kacbadu waxay ahaatay la kabiiratan mid ku weyn dadka oo ku culus illa ala alladina kuwi korkooda mooyaane oo iyaga aanay ku weynaynay u fududahay kuwaasoo hada allahu ilaahay u hanooniyey wama kaana allahu alla ma ahaanin liyudiica kii luminaya iimaanakum iimaankiina iimaankan waxaa looga jeedaa salaatuhum ilaa bayt almaqdis intii aan la nasakhin een xagga kacbada loo soo jeedin salaaday u tukan jireen xagga baytulmaqdis ee jihada shaam ilaahay idinkama dayacayo ee waa idin daryeelaya weeyaan macnuhu waxaanay aayaddaasi soo degtay markay yahuudi ku yidhaahdeen salaadiinii baytulmaqdis way dayacantay oo kuwii ku dhintay ayaa weliba dadka ugu daran oo waxba loo qorin sidaa markay yidhaahdeen ayaa alla uu soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum ilaa bayti lmaqdis aayaddu waxay daliil u tahay ana alacmaala min aliimaan acmaasha wanaagsan ee la sameeyaa iimaanka inay ka mid yihiin waayo aliimaanu qowlun wacamalun waictiqaadun bilqalb iimaanku waa wax afka lagaga dhawaaqa iyo carabka xubnaha iyo jawaarixdana lagaga camal falo qalbigana laga ictiqaadiyo laga yaqiiniyo saddexdaa rukni ama tiir buu ku taagan yahay marka acmaashu waa mid ka mid a arkaanta iimaanku ku taagan yahay oo waa alacmaalu min aliimaan wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyudiica kii idinka luminaya iimaanakum ay salaatakum ilaa bayt lmaqdis salaadaad u tukan jirteen baytulmaqdis intaan la nasakhin ilaahay idinkama dayacayo waayo ina allaha alla binnaasi dadka la ra-uufun waa mid u tudhis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista ra'fadu waa shiddat raxma waa naxariista baliiqee xeesha dheer oo way ka xeel dheer tahay raxmadda alla waxa uhi qad naraa dhab ahaan baanu u aragnaa taqalluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa nebi moxamedow fi samaa'i ay fii jihati asamaa xagga sare ee samada gadgadoonka wejigaagu uu ku gadgadoomayo ee eegmada iyo aragga aad ku laba celinayso adoo rajaynaya xagga sare inuu waxyi kaaga soo dego kugu amraya inaad kacbada u jeedsato waanu ku arkanaa baa alla u yihi subxaanah sida fiicanna qaddaa xarfu taxqiiqa addee macaani kalena waa leedahaye sida saxda ah waa in ficilka ka dambeeya laga dhex macneeyo gaar aan loo macnayno dee qad xaqiiqee haddaad tidhaahdo macnaa taxaqaqa ficil oo kale aad ka dhigto waxay ka hor imanaysaa macnihii ama tacriifkii ahaa dee walxarfu maa laa yadharu macnaahu kaamilan ilaa maca gayrihi waxa ka dambeeya ayaa macnihiisu ka muuqdaa ee iskii uma taagna xaraf macnaha uu tusiyaa marka qad naraa xaqiiq ahaan baanu u aragnaa baa alla u yihi taqalluba wajhika nebi moxamedow wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaa'i ay fii jihati asamaa xagga sare ee samada gadgadoonka wejigaagu ku gadgadoomayo ee kolba aada eegayso adoo isla talow waxyi ma kugu soo degaya oo rajaynaya in lagugu soo dejiyo waxyi lagugu amro kacbada inaad u jeedsato ilaahay waxa uu leeyahay gadgadoonkaaga nebi moxamedow waa ku arkaynaa waananu ognaho waa la soconnaa falanuwalliyannaka walle waanu kuu jeedinoo waanu kuu jeedin nebi moxamedow qiblatan qiblo ayaanu kuu jeedin qiblada oo tardaaha aada raalli ka tahay marka horeba sharcan dee qiblada horeba raalli buu uga ahaa oo rabbi waa u hoggaansanaayo kamuu hor imanayn laakiin ridahan waxaa looga jeedaa xagga nafsiyan naf ahaan ayaad yacni nafsiyan waxaad u jeclayd oo adigoo raalli kaa sharciga ilaahay meel kastoo uu kuu jeediyo ayaa haddana xagga niyadda iyo laabta waxaad aada u jeclaysanaysa in xagga kacbada lagu soo wareejiyo tiina ilaahay waa kuu yeelay weeyaan falanuwalliyannaka walle waanu kuu jeedinoo waanu kuu jeedin nebi moxamedow qiblatan qiblo ayaanu kuu jeedin qiblada oo tardaahaa
aada raalli ka tahood rabtood jeceshahay. ee fawalli jeedi nebi moxamedow wajhaka wejigaaga jeedi. wejigana waxaa loo cabiray dee waa ashrafu lacdaa, xubnaha qofka ta ugu sharafta badan, waxaana looga jeedaa un bimacnaa alaan hadda waxaa looga jeedaa ay daataka oo daatadaada iyo naftaada oo dhan xagga qiblada u jeedi. oo ma banaana qofka laabtiisa ama dee jidhkiisa wax kamid oo dhinac kale u jeeda inuu wejigoo keliya xaggaa u daymoodo, maaha muraadku. ee siduu u dhammaystiran yahay wuxuu wada qaabilayaa xagga xarabka. wejigase waxaa looga cabiray waa ashrafu lacdaa, waa halkii ugu mudnayd, inta kalena waa la mid. allah waxau yihi markaa fawalli jeedi nebi moxamedow wajhaka wejigaaga u jeedi, ay kullaka dhammaantaa weeyaane, shatra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi, masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa. sida jalaaleynku uu tilmaamayo dee masaajidka xaramku waa weyn yahe waa ayilkacba, waa kacbada murabic ee 4 tiir ama rukni leh xaggeeda u jeedsa weeyi. oo haddaad joogtana waa caynteeda qaabil ay kuu muuqato, haddaad ka maqan tahayna waa jihada iyo xaggay kaa xigto uun, waayo bayna almashriqi waalmagribi qiblatun. fawalli jeedi wajhaka wejigaaga u jeedi shatra, shatrana waa bimacna aljiha e shatra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi, masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa waa kacbada eh. waxayumaa kuntum meel kastood ahaataana fawalluu u jeediya wujuuhakum wejiyadiina shatrahu masaajidkaa xurmada leh xaggiisa u jeediya. wa ina aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey waa nimankii yahuudiya nasaare ee towraad iyo injiil loo soo rogay, layaclamuuna waxay og yihiin oo ay garanayaan nimanka ahlulkitaabka ah annahu ay tawalli oo masdarka tawallida ee fawalluuda laga fahmay damiirka u celi, ilan ficil kastaa wuxuu koobsanayaa masdar damiirku u noqon kara eh. marka wa ina aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ahlulkitaabka ahaa layaclamuuna waxay garanayaan oy og yihiin annahu ay tawalli in jeedsigaa kacbada loo jeedsanayaa alxaqu xaqii inuu yahay min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday. oo towraad iyo injiilba waa ku taalay in kacbada loo soo jeedin doono nebiga sala allahu calayhi wasalam. wama llaahu ilaahay ma ahaanin bigaafilin mid moogan camaa yacmaluuna waxay samaynayaan rabbi ma moogana ee waa ogyahay waanu arkayaa. allah waxau yihi wala in atayta, laamtu waa muwati'atun lilqasami, dhaar bay u gogol dhigaysaaye. wala in atayta wallaahi baan ku dhaartay, lain atayta haddaad ula timaado nebi moxamedow aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey yahuudiya nasaara ee towraad iyo injiil loo soo dejiye, haddii aad ula timaado bikulli aayatin aayad kasta oo tusinaysa kacbada in laguu soo jeediye inay runkaa tahay. oo jalaaleynku wuxuu odhanayaa ay bikulli aayatin calaa sidqika fii amri alqibla, aayad kastoo tusinaysa kacbada in laguu soo jeediye inay runtaa tahay oo laguu waxyooday, aayad kasta haddaad ula timaado ma tabicuu raaci maayaan qiblataka qibladaada ku raaci maayaan oo marnaba ku waafiqi maayaan. wamaa anta adiguna maad ahaanin bitaabicinkii raacaya qiblatahum qibladooda adiguna raaci maysid. wamaa bacduhum barhkoodna ma ahaanin bitaabicinkii raacaya qiblata bacdin barhka kale qibladooda. oo yahuud waxay u jeedsanayeen baytulmaqdis, nasaarana jihada mashriqa ama cadeed ka soo baxa ee bariga, dee muslimiintuna xagga kacbada ayay u jeedsanayeen. markaa waxaa la leeyahay aayad kasta haddaad u keento ku raaci maayaan, adiguna raaci maysatooda, iyaga laftooduna qolana qolada kale ma raacaysa qibladeeda. iyagoo qibladoodu kala duwan tahay ayaa haddana la yidhi qiblatahum, qibladooda qiblooyinkooda lama odhan oo lama jamcin, lianna alkufra millatun waaxida, waayo qiblooyinkoodu haba kala duwanaadaan ee gaalnimadu waa un milla iyo diin keliya ka dhigan tahay, kol hadday ku kulmeen kufriga iyo ishraaga. alla waxau ihi walain itabacta, wallaahi baan ku dhaartay lain itabacta haddaad nebi moxamedow raacdo, ay fardan wa taqdiiran kaba soo qaado, marnaba dhici mayso. laakiinba haddii ay dhacdo dee waxa weeyaan daalim dembaabaad noqonaysaa. marka waxaa la yidhaha shardigu yacni khaasatan marka inta shardiyadoo kale ay gasho
idaada waxay kaga duwan tahay waxaan dhacaynba ayaa lagu xidhaa shardigeeda mararka qaarkoodna mustaxiil ah sida la in ashragta la yaxbatanna camaluk waa la ogayay nebi maxamed marnaba inaanu shirki ku dhacay laakiin haddana waxaa la leeyahay kaba soo qaado hadday dhici lahayd sidaasaa xukunkaagu noqon lahaa waa weysha gowrac dibigu ha ku quus qaatee walain itabacta markaa muraadku dee waa ummadda nebi moxamed amarka loo jeedinayaa cidda loo socdee loogu quusgoynayaa waa ummaddiisa wallaahi lain itabacta haddii aada raacdo nebi moxamedow ahwaa'ahum nimanka ahlulkitaabka yahuud iyo nasaara hawadoodiiyo waxay jecel yihiin haddaad ku raacdo min bacdi maa kii dabadii kaasoo jaa-aka kuu yimid huwa maaga oo min alcilmi cilmiga iyo waxyiga ah waxyiga rabbaanigee kuu yimid dabadii haddaad hawadooda raacdo hee innaka adigu idan haddaa yacni wakhtigaas haddaad kuwa raacdo la min aldaalimiina kuwa daalimiintaee dulmiga falay ayaad ka mid noqonaysaa laakiin wax dhacaya maaho waa wax mustaxiil oo waa ma dhacdo allah waxau yihi aladiina kuwa aataynaahum anu siini alkitaaba kitaabkii jinsulkitaab buu ku dhacayaa oo towraad iyo injiil ku rumoobaya waana yahuud iyo nasaara markaa kuwaanu kitaabka siinay waa ahlu kitaabkii towraad iyo injiil loo soo dejiyey yacrifuunahu damiirkana nebi moxamed baa loo celinayaa sida raajixa ahe yacrifuunahu nebi moxamed waa garanayaan kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abnaa'ahum inamadooda siday u yaqaanaan baa nebi moxamed ay u garanayaan oo tilmaantooda towraad iyo injiilba ku yaala wa ina fariiqan koox oo minhum iyaga ka mida kuwa ahlu kitaabka ahna layaktumuuna way qarinayaan alxaqa xaqii bay qarinayaan oo tilmaamuhu nebi moxamed lahaa ee towraad iyo injiil ku yaalay way qarinayaan oo dadka u daahirin maayaan oo u muujin maayaan walxaal bay xaqaa qarinayaan hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan tilmaamuhu nebi moxamed lahaa oo towraad iyo injiilba ku yaalay allah waxau ihi alxaqu xaqu min rabbik rabbigaa xaggiisuu ka ahaaday nebi moxamedow ee falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina xaqa kuwa ka shakiya ha ka mid noqon waxay culimmadu yidhaahdeen falaa takuunanna min almumtariina ayaa xagga nafyiga iyo diidmada ka xeel dheer falaa tamtar ha shakiin waxaa ka xeel dheer falaa takuunanna min almumtariina haba ka mid noqon kuwa xaqa ka shakiya kuwa ha ka mid noqonin allah waxau ihi walikullin ay walikulli fariiqin qolo walba waxa u sugnaaday oo yahuud iyo nasaare iyo mu'miniinta ka mid a ilan waa kooxo kala duwane walikullin qolo walba ay walikulli fariiqin koox walba ama qolo walba waxa u sugnaatay wijhatun jiho ayaa u sugnaatay jihadaasoo huwa fariiqa ama kooxdaasi ama kulliguba muwalliiha jihada uu jeedinayo ay wajhahu aw nafsahu naftiisa ama wejigiisa uu jeedinayo oo wallaa waxay qaadataa laba mafcuulo isamka faacilna dee yacmalu camala ficlihi oo muwalliina labadiibuu qaadan oo mid waa madkuurkan la sheego haa oo jihada ku dhacaya midna waa ka la soo qadarayo wajhahu aw nafsahu oo ka naftiisa ama wejigiisa jeedinaya ah marka waana min baab alxikaaya oo laga waramayo qolo walba inay jiha u jeedsato ee calaa sabiili liqraar ma aha waayo waxa sugani waa qiblada muslimiinta ee kacbada uun kuwan kale se waa laga xikaayoonayaa uun dee kufrigooda iyo gaalnimadooda walikullin ay walikulli fariiqin qolo walba waxa u sugan wijhatun jiho ayaa u sugan jihada oo huwa kooxda ama kulligaasi muwalliihaa jihada uu jeedinayo ay wajhahu aw nafsahu wejigiisa ama naftiisa uu jeedinayo fastabiquu u tartamo u kala dheereeya alkhayraati khayraadka u kala dheereeya aynamaa takuunuu meel kastoo ahaataanba ya'ti waa idin keenayaa bikum idinka allahu alle jamiica xaal aatiin dhammaantiin waayo ina allaha ilaahay calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda weeyi wa min xaysu kharajta meel wal oo aad ka baxdo
oo socoto iyo safar aad u baxdo fawalli jeedi wajhaka wajigaaga nebi maxamed u jeedi shatra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa marka amarka nebiga la siinayana walummatu tabacun lahu ummaduna dee waa ku raacsan tahay oo madaxa amarka la siiyo dee mijaha iyo dadka atbaacdee raacsanna waa kaga dayanayaan weeyi marka culimadu waxay yidhahdeen dee salaada dhexdeedii waa waajibo dee la-aanteed ansixiba mayso marka salaada la tukanayo in kacbada lala qaabilo laakiin acmaasha kale khayrka sida dikriga iyo ducada iyo waxyaabaha la midka ah waa mamduux laakiin waajib ma aha way fiican tahay wanaag oo dhan qiblada in lala qaabilo laakiin waajib ma aha laakiin salaada marka la joogo dee haddaanay daruura kugu dhicin la-aanteed kuuba ansixi mayso iyadu baryo maahay waa waajib wa min xaysu kharajta meel waloo aad ka baxdaba fawalli u jeedi wajhaka wajigaaga nebi maxamedow shatra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa wa inahu ay tawliyatu dheh ama aw tawalli wa inahu jeedsigaa xaramka ama kacbada loo jeedsanayaa lalxaqu waa xaqi oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday wama allaahu allana ma ahaanin bigaafilin mid moogan camaa kii tacmaluuna aada samaynaysaan wa min xaysu kharajta meel waloo aad ka baxdo fawalli wajhaka waxaa intaa loo soo celcelinaya waa ta'kiidka waajibnimada arrintaasi ay waajib tahay la adkeeyey wa min xaysu kharajta meel waloo aada nebi maxamedow ka baxdaba fawalli jeedi wajhaka wejigaaga jeediyo shatra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa waxayumaa kuntum meel kastoo ahaataanba yacni baran wa baxran wa jawan wa ardan meel kastoo aada maraysaan oy suurtagal idinka tahay weeyi waxayumaa kuntum meel kastoo aada ahaataanba fawalluu u jeediya wujuuhakum wejiyadiina shatrahu ay shatra almasjid alxaraam masaajidkaa xurmada leh xaggiisa u jeediya wejiyadiina maxaa ugu jeedinaysaan lianlaa yakuuna halkan waxaad ku cilaysaa fawalluu tawliyada oo macnaha maxaad wejiyadiina xaramka ugu jeedinaysaan waa lianlaa yakuuna si aanu ugu ahaan linnaasi dadka aanu ugu ahaan calaykum korkiina xujatun wa xujo ama gar ah oo marnaba xujo idiin heli maayaan laakiin waxaa loo jeedaa wax xujo u eg si aanay idinku helin dee xaramka iyo kacbada u jeedsada oo jalaaleynku halkaa wuxuu odhanayaa marka uu fasiraayo ay mujaadalatan fi tawalli ilaa gayrih si aanay idinkula doodin oo aanay doodiyo garta idinkaga helin haddaad meel aan kacbad ahayn u jeedsataan ay litantafii mujaadalatuhum lakum min qowli lyahuudi yajxadu diinana wayatabicu qiblatana wa qowli lmushrikiina yaddaci millata ibraahiima wayukhaalifu qiblatahu waxau odhanayaa jalaaleynku macnaha waa si doodoodiiyo xujadoodu ay usoo afjarantay usoo go-do oo ay ugu soo go-do yacni hadalkay yahuudi lahaayeen qibladayadiina waa u jeedsanayaa diintayadiina waa diidan yahay markuu baytulmaqdes soo qaabilayey iyo odhaahday mushrikiintu lahaayeen miladii nebi ibraahim baan raacsanahayna wuu leeyahay qibladiisiina wuu khilaafayaa oo kacbada uma jeedsanayo labadaba hadalkoodu siduu usoo afjarmo oo mar haddaad kacbada u jeedsato dee hadalkii yahuudeedna waa soo afjarmay oo odhan maayaan isagoo waxa weeyaan diintayadii diiday buu qibladayadii qaabilsan yaho waaba la nasakhay hadalkii mushrikiinna waa soo afjarmay oo odhan maayaan isagoo millatu ibraahim sheeganaya ayuu kacbadii kasii jeedaa oo waaba usoo jeedsaday marka labada qolaba si ay xujadoodu usoo go-da weeyaan macnuhu lianlaa yakuuna maxaad wejiyadiina kacbada ugu jeedinaysaan oo cilada iyo sababku yahay lianlaa yakuuna si aanu ugu ahaanin linnaasi dadka waa nimanka yahuudeed iyo mushrikiinta carbeede calaykum korkiina si aanu ugu ahaanin xujatun xujo iyo gar ay idinka helaan si aanay u helin ila aladiina kuwii mooyaane dalamuu dulmiga falay oo minhum iyaga ka mid ah oo kuwaasi iyagu dee waxay doonaan bay ku hadli oo waxaa looga jeedaa
kuwooda mucaanidiinta ee canaadka iyo cariigsiga iyo madax adayga ku sifaysani iyagu waxbaba ku qanci maayaane kuwa ha u aabayeelina ila aladiina dalamuu minhum laakiin kuwooda laga yaabo inay macquul ama wuxuun qaadan karaan si xujadooda usoo afgo-do ayaa macnuhu u yahay ila aladiina kuwii mooyaane dalamuu dulmiga fale oo minhum iyaga ka mid ahoo kuwa mucaanidiinta canaadka iyo cariigsiga ku talax tegay iyagu waxba ku qanci maayaane kuwa dan iyo muraad ha ka gelina oo falaa takhshawhum kuwa madaxa adag ee mucaanidiinta ha ka baqanin ee wakshawni aniga iga baqa oo kacbada usoo jeedsanaysaan iyaga ha ugu aaba yeelina dan iyo muraadna ha ka gelina waliutima ciladana waxay ku cadfantahay ciladii hore lianlaa yakuuna waxaad wejiyadiina kacbada ugu soo jeedinaysaan si aanay cidina xujo idinku helin iyo waliutima iyo si aan ugu dhammaystiro nicmatii nicmadayda calaykum korkiina nicmada diinta iyo xaqa si aan korkiina ugu taam yeelo iyo walacalakum tahtaduuna walikay tahtaduu si aada u hanuuntaan oo xaqa iyo wanaagga aada ugu hagaagtaan oo ugu hanuuntaan oo kacbadu ay ka mid tahay kamaa arsalnaa jalaaleynku waxau odhanayaa kamaa arsalnaa tashbiihaasi wuxuu ku tacalluqayaa oo ku xidhan yahay waliutimadii oo macnuhu waxa weeyi waliutima nicmatii calaykum waxaad sidaa u yeelaysaan si aan cidina aanay xujo idinku helin iyo si aan nicmadayda idinku taam yeelo ay itmaaman ka itmaamihaa biirsaalinaa fiikum rasuula si aan nicmadayda idinku taam yeelo taamyeelid la mid ah taamyeelida aan nicmadayda ku taam yeelay rasuulkaan idiin diray ee idinka dhexdiina aan ka soo bixiyey oo macnaha sidaan nicmadayda risaalada rasuulkeen idiin soo diray dhexdiina aan ka soo saaray aan ugu taam yeelay oo kale ayaa nicmadaana idinku taam yeelayaa weeyi marka kamaa arsalnaa sidaan idinku soo diray baa alla yihi fiikum idinka dhexdiina rasuulaanu idinku soo diray rasuulka oo minkum idinka idinka mid ah marka tashbiihu sidaa aan tilmaamay arsalnana marka waxa weeyaan bimacna alirsaal masder laga keeno macnuhu wuxuu noqonayaa itmaaman ka itmaamihaa biirsaalinaa fiikum rasuula iyo si aanu nicmada idinku dhammaystir la mid ah sidaan nicmada idinku dhammaystiray markaan rasuulka dhexdiina usoo diray ama aan ka soo bixiyey kamaa arsalnaa ay ka irsaalinaa sida diristayadii oo kale aanu nicmada ugu taam yeelay fiikum dhexdiina aanu usoo diray rasuulka oo minkum idinka mid ah rasuulka oo yatluu akrinaya calaykum korkiina ku akrinaya aayaatina aayaadka yaga idinku dul akrinaya oo wayusakiikum idin daahirinaya oo gaalnimo iyo shirki iyo dembi iyo xumaan oo dhan idinka daahirinaya oo wayucallimukum idin baraya alkitaaba kitaabkii qur-aankaa idin baraya iyo walxikmata sunnada oo wayucallimukum idin baraya maa shay lam takuunuu aydaan hore u ahayn taclamuuna kuwa garanaya fadkuruunii ixasuusta oo ixusa baa alla yihi adkurkum anna waan idin xusi oo xuska alla uu xusayaa addoommadiisa waxa weeyi inuu wanaag iyo khayr ku abaalmariyo iyo malaa'igta dhexdeeda inuu ku ammaano washkuruu ii mahadnaqa lii aniga ii mahadnaqa oo nicamkaan idin siiyey igu mahadiya oo walaa takfuruunii hayga gaaloobina oo nicmado aad ku mahadnaqdaan waxay idiin sababaysaa inay idiin sugnaato idiinna ziyaado inaad ka gaalowdaana inay idinka baaba'do onay baaqi noqon ayay idiin sababaysaa alla waxau ihi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow istaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka kaalmaysta iyo wasalaati sabirka iyo salaadaba kaalmaysta waayo ina allaha alla maca asaabiriina kuwa sabra ayaa la jirkooda u ahaaday waa maciye khaas oo maciyat nusra wata'yiid waa xoojinaya waana u gargaaraya weeyi walaa taquluu ha ku odhanina liman cidda yuqtalu loo dilayo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa cidda loo dilaya ha ku odhanina amwaatun ay hum amwaatun waa kuwa dhintay ha ku odhanina bal iskaba dhaaf inay amwaad yihiin axyaaun kuwa nool weeyi walaakin ha yeeshee laa tashcuruuna waydaan dareemayn oo ma dareensanidin mana garanaysaan oo macnaha cilmi ahaan inaad u ogaataan mooyaane si xisi ah dee uguma dareemi kartaan xawaastiina oo waa wax laydinka qariyo oo idinka qarsoon
macnaha loo jeedaana waa xayaatun barzakhiya looma diidana inay soo dhinteenoo dee adduunka inay kusoo dhinteen waxaba u daliila waa la aasay oo waxa weeyaan dee xabaal baaba lagu rido adduunyadii waa soo dhinteen oo dee ilaahay dartii baaba loo dilay markaa dhimasho adduunyo inay soo dhandhamiyeen waa dhab laakiin waxaa la leeyahay mar haddii xabaashiyo iilka la dhigay dee arwaaxdooda iyo ruuxdoodu waa kusoo noqoto halkaa waxay ku nool yihiin nolol tii qabriga ama alxayaatu albarzakhiya oo nicmo iyo barwaaqay ku jiraan waayo xabaaluhu dusha waa isaga mid hoostase waa ku kala duwan yihiin oo qaarna waa ku cadaaban yihiin qaarna waa ku nicmaysan yihiin oo jannay ku jiraan allah waxau ihi walanabluwannakum wallaahi lanabluwannakum waanu idin imtixaami oo waanu idin imtixaami bishayin waxbaanu idinku imtixaami waxaasoo min alkhawfi cabsi ah cabsi aad cadowga ka cabsataan oo laydinku imtixaamo iyo waljuuci gaajo ah oo abaaro ay idinku dhacaan iyo sicir barar iyo wanaqsin nuqsaan laydinka nuqsaamiyo oo idinka dhinmaan min alamwaali xagga xoolaha nuqsaan idinkaga dhacdo oo xoolihii idinka baaba-aan ama ay idinka dhintaan wal anfusi iyo nafihii oo idinka nuqsaama oo dhimasho iyo dhaawac iyo bukaanba idinku dhaco iyo wathamaraati iyo waxa weeyaan xagga midhaha oo idinka nuqsaama oo beerihii ay idinka ba-aan wabashir u bushaaree nebi moxamedow assaabiriina kuwa waxaasoo imtixaana ku sabra ee u adkaysta u bushaaree lama sheegin wixii lagu bushaaraynayo waa liifaadati alcumuum oo khayr iyo wanaag oo dhan oo janna ugu weyntahay ugu bushaaree bishayin nakirada waxaa la yidhi waa litaqliil waa yarayn oo bishayin waxoogaa yar oo cabsi iyo gaajo iyo xoolahoo nuqsaama iyo nafahoo nuqsaama iyo midhahoo nuqsaama waa wax yar baa laydinku imtixaamaya oo inta wanaag iyo nicmo aad haysato iyo inta dhibaato kugu dhacday waxa uun badan nicmadaad haysa had iyo jeerba aladiina idaa asaabathum ka sifee saabiriinta oo aladiina saabiriintaasoo idaa asaabathum ama hum aladiina saabiriintu waa kuwa haddii mubtada iyo khabar la ysaga dhigo kuwaasoo idaa asaabathum markay haleesho musiibatun balaayo iyo dhibaata markay ku dhacdo musiibadu waa ismi faacil oo min asaaba markaa waxaa la yidhaha asal ahaan luqatan musiibadu waa haleesho waa min alisaaba marka kullu maa asaabaka bikhayrin aw bisharin musiibo ayaa lagu idlaaqa waa wuxun ku haleelo dhib iyo dheefba laakiin xagga isticmaalka waxay ku xoog roonaato markii dambe haalib noqday in loo adeegsado uun wixii dhibaato kugu dhaca laakiin asal ahaan luqada carabiga ishtiqaaqa kelmadu halka laga soo jeexday ama laga soo dhambashay waxay ahayd isaabada oo dee kullu maa asaabaka bikhayrin aw bishar laakiin sharkuu ku haalib noqday haddana muraadku u yahay aladiina kuwaasoo idaa asaabathum markay haleesho musiibatun tu haleeshay oo dhibaato ah qaaluu odhanaya ama yidhaahda inaa anagu lilaah alla ayaanu u sugnaanay wa inaa anagu ilayhi ay ila allah alle xaggiisa unbaa raajicuuna kuwa u noqonaya aanu nahay marka musiiba markay dhacdo yacni waxa sunno ah dee ruuxu inuu yidhaahda inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii waakhlif lii khayra minha allah waxau ihi ulaa'ika kuwaasi saabiriinta ah dhibka ku sabraya calayhim korkooda waxaa ahaatay salawaatun ammaano min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatu naxariis oo labadaba in naxariis laga dhiga salawaatu naxariiso iyo waraxmatu naxariis oo sida culimada qaarkood ay yidhaahdaan naxariis caama iyo mid khaas ah waxaa ka habboon oo ka xoog badan salawaadka in ammaano ammaanta ilaahay addoommadiisa filmalay laclaa ku ammaanayo in lagu fasiro raxmaddana naxariisteeda loo daayo waana sida bukhaari abulcaaliyat alriyaaxi taabicigii la odhan jiray uu kaga soo wariyey bukhaariga ee uu yidhi abulcaaliya salaatu llaahi calaa cabdihi hanaauhu calayhi fi lmala'i alaclaa salaada ilaahay addoonkiisa ku salliyayo waa inuu ku ammaanayo malaa'igta sare dhexdooda inuu ka ammaanayo weeyaan salaada rabbi ulaa'ika kuwaasi calayhim korkooda waxaa ahaatay markaas salawaatun ammaano oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaato alla uu ku ammaanayo malaa'igta dhexdooda iyo jameecaadka sare iyo waraxmatu naxariis ayaa korkooda ahaatay
wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba almuhtaduuna kuwa hanuunsani waa iyaga uun. allah waxa uu yihi ina asafaa walmarwata safa iyo marwe min shacaa'ir illaah, looma jeedo daatadooda min shacaa'ir illaahi, waa sacyiga iyo camalka dhexdooda dhacaya ayaa calaamadaha waaweyn ee diinta lagu aqoonsado ka mid a. marka waa calaa xadfi mudaaf, mudaaf baad usoo qadariyo macnuhu waa ina sacya asafaa walmarwati, buurta safa iyo buurta marwa sacyiga dhexdooda la socdo ee lagu wareegaa min shacaa'ir illaahi ay min shacaa'iri diin illaah, ilaahay diintiisa calaamooyinka waaweyn ee lagu aqoonsadee astaanta u ah ayaa ay ka mid yihiin. faman xaja ruuxa haddaba u qasta albeyta beytkii allee xaj ugu qastay inuu u xajo, aw ictamara ama cumraysta, falaa junaaxa dembi calayhi korkiisa kama saara, falaa junaaxa dembi calayhi korkiisa ma ahaaninoo an yatawafa fii an yatawafa inuu ku wareego kuma dembaabayo bihimaa safa iyo marwe dhexdooda inuu ku wareego. waman tatawaca ruuxa tatawuca ee taaco iyo khayr sunnanimo u sameeya, khayran xaal uu yahay khayr tatawucaas oo laga sifeeyo masderka tatawuca ee ficilka tatawuca laga fahmayo, ama nasculkhaafidba lagu nasbiyo oo khayran ay bikhayrin khayr ku sameeya shay sunno ah, oo tatawucana wixii aan waajibka ahayna qofku ku tatawucaa la yidhaah. marka waman tatawuca ruuxa sunnanimo u sameeya taaco, khayran xaal uu yahay khayr tatawucaas, fa ina allaha alleh shaakirun waa kii u mahadnaqaya qofka tatawucaa sameeye ee macnaha camalka kooban ee uu sameeyo abaal badan kaga abaal marinaya, kaasoo caliimun ogaal badan. ilaahay waa ka u mahadnaqaya ka taacadaa sameeya una ogaalka badan ee wanaagga iyo khayrkaa uu sameeyo u og kana abaal marin doona. aayaddani waxay kusoo degtay inagoo dadejinaynaa, waxay culimmadu yidhaahdeen jaahiliyadii hore qabla alislaam safa iyo marwe dhexdooda way sacyin jireen oo waa ku wareegi jireen, laakiin safana waxaa saaraa sanam la yidhaha isaaf, marwana sanam la yidhaahda naa'ila. markaa mid walba markay gaadhaan way isku masixi jireen si ay u barakaystaan. marka markii islaamku uu yimid ee asnaamtii la burburiyey ayaa muslimiintii waxay moodeen dee arrinka sacyiga safa iyo marwaba inuu umuurtii jaahiliga ka mid yahoo lagu dembaabayo haddii la sameeyo, oo waa ka joogsadeen oo xaraj iyo dembibaa ay ka dareemeen. markaasay soo degtay safa iyo marwe dhexdooda inaad sacyidaan ku dembaabi maysaan. haddaba falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa lagama qaadanayo dee safa iyo marwe sacyigoodu inuu sunno yahoo laga tegi karo, sida curwaba uu mooday ee caaisha ku inkirtay. waayo curwa ibnu zubayr ee caashi habaryar u ahayd intuu sidaa mooday ayay ku tidhi hadduu arrinku sidaa yahay lama yidhaahdeen falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa, ee waxaa la odhan lahaa falaa junaaxa calayhi fi yacni anlaa yatawafa bihimaa, inaanu ku tawaafin oo aanu ku sacyin ku dembaabi maayaa la odhan lahaa haddii loo jeedo waa laga tegi karaa. laakiin waxaa imika loo yidhi fii an yatawafa bihimaa, yacni waxaa laga zuulinayaa xarajkii ay dareemeen baa la leeyahay ku dembaabi maysaane ku dawaaf oo ku wareega. laakiin rukninimada sacyiga iyo waxa weeyaan sacyiga safa iyo marwa dee nusuusta kalea laga qaadanaya, oo xadiidkii kale ee culimada qaarkood ay quweeyeen nebigu waxau yihi ina allaha kataba calaykum asacya fascaw, ilaahay sacyiga waa idinku waajibiyee sacyiya. xadiidkii kale imaamu muslimna wuxuu ahaa inuu rasuulku yidhi nabda-u bima bada'a allaahu bihi, waxaynu ku bilaabaynaa wuxuu alla ku bilaabayoo sacyiga safaa laga bilaabayaa, ila ilaahayba safa ayuu hormariyo ina asafa walmarwa ayaa rabbi u yihi subxaanah. alla waxau yihi ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa kii anzalnaa aan soo dejino min albayinaati aayadaha cadcada iyo walhudaa hanuunka, min bacdi maa bayannaahu xaqa intaanu u caddaynay dabadeed linnaasi dadka aanu ugu caddaynay fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa, waa jinsulkitaabo waa kitaabkii towraad iyo injiil dhexdiisa intaanu xaqa ugu caddaynay kadib kuwa qarinaya waa nimankii yahuudeed iyo nasaare. ulaa'ika kuwaasi yalcanuhum allahu ilaahay waa nacdalayaa oo naxariistiisa waa ka durkinayaa,
wayalcanuhum waxaana nacdalaya allaacinuuna kuwa wax nacdala jin iyo insiba iyo malaa'ig iyo mu'miniinba kulli waa wada nacdalayaan ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobadkeenoo wa aslaxuu hagaajiye waxay xumeeyeen oo wabayanuu caddeeyey waxay qariyeen fa ulaa'ika kuwaasi atuubu waa ka toobad aqbalayaa baa alla yihi calayhim korkooda waana anigu attawaabu allaha toobad aqbalka badan baanay alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista waxaa halkaa laga qaadanayaa qofka mufsidka ee wax fasahaadiya ama wax xumeeya shuruudda lagaga toobad aqbalaya waxaa ka mid a alislaaxu walbayaan wuxuu xumeeyey inuu hagaajiyo wuxuu qariyey ama uu waxa weeyaan daaha saarayna inuu bayaamiyo oo baatilnimada wuxuu ku jiray iyo xaqnimada waxa uu soo galay ee xaqa ah inuu kala caddeeyo ayaa looga baahan yahay allah waxa uhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo amaatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin waxaa ka baxaya kuwa intay gaaloobeen gaalnimo aan ku dhimana dee islaam u noqdo islaamnimo ku dhintay iyagu ma soo gelayaan ulaa'ika kuwaasi calayhim korkooda waxaa ahaatay lacnatullah ilaahay nacdashiisa korkooda ahaatay oo naxariista rabbi in laga dheereeyo laga durkiyo ah iyo walmalaa'ikati malaa'igta lacnadooda ayaa korkooda ahaatay iyo wannaasi dadka lacnadooda korkooda ahaatay ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood kuwaasoo dhan lacnadooda korkooda ahaatay khaalidiina xaalayiin kuwii ku waaraya fiihaa lacnada dhexdeeda ama fiihaa naarta dhexdeeda lacnada laga fahmay oo haddii haada naarta loo celiyo waxaa laga fahmayaa naar inay gelayaan lacnada oo kolba haddii naxariis laga dheereeyo dee hoygooda hantidii waa naarta haawiye ciyaadan billaah marka khaalidiina xaalayiin kuwii ku waaraya fiihaa lacnada ama fiihaa naarta dhexdeeda laa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga alcadaabu cadaabka walaa hum manay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo wa ilaahukum macbuudkiina xaqii ilaahun macbuud weeye macbuudka oo waaxidun keli ah laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane alraxmaanu mooyaane haddii laga bedelo ama huwa araxmaanu waayo damiirka laguma sifeeyo wax yacni sifana ma noqdo waxna laguma sifeeyo marka ilaa huwa alla mooyaane macbuud kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro alraxmaanu mooyaane haddaad ka bedesho damiirka laguma sifayn karee ama khabar mubtadihiisii maxduuf yahay ka dhigo huwa macbuudka xaqii alraxmaanu allaha naxariista ballaadhan ku sifaysan weeyaan allihii alraxiimu ee addoommadiisa u naxariisanayey ina fii khalqi asamaawaati cirarka abuuristooda dhexdooda waxa ku sugan iyo waalardi dhulalka abuuristooda dhexdooda waxa ku sugan iyo wakhtilaafi alleyli waannahaar habeenkiiyo maalinta iskhilaafkooda kolba midu soo gelayo kolba midu dheeraanayo midna uu gaabanayo isbedbedelka iyo iskhilaafka habeenkiiyo maalintana dhexdooda waxa ku sugan waalfulki doonyahana dhexdooda waxa ku sugan allatii doonyahaasoo tajrii soconaysa fi lbaxri ay cala albaxri badda korkeeda soconaysa bimaa shayna la soconaysa shayga oo yanfacu wax u taraya annaasa dadka wamaa kiina waxa ku sugan anzala allahu alla uu ka soo dejiyey min asamaa xagga sare ee daruuraha oo samada toddobadii samee kala sarreeyey hadda loogama jeeday daruuraha looga jeedaa waayo kullu maa calaaka fahuwa samaa siduu qataada yidhi marka wamaa kiina waxa ku sugan anzala allah alla uu soo dejiyey oo min asamaa xagga sare daruuraha uu ka soo dejiyey oo min maa-in biyo ah oo fa axyaa dabeed uu ku nooleeyey rabbi bihi biyaha alarda dhulka uu ku nooleeyey bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed intii abaarowday kadib wabatha waxaad ku cadaftaa iyadana wabatha wamaada oo wamaa kiina waxa ku sugan batha ilaahay uu ku firdhiyey uu ku faafiye fiiha arlada dhexdeeda oo min kulli daaba noole arlada dul socda dhammaantii ah kullu maa yadubu cala alard wax alla waxaa arlada dul socday alla ku faafiyena dhexdooda waxa ku sugan wa tasriifi riyaaxi dabaylaha gedgedintooda la gedgedinayo ee kolba jiha iyo dhinacay ka imanayaan dhexdooda waxa ku sugan iyo wasaxaabi daruurahana dhexdooda waxa ku sugan daruurihii almusakhari la layliyey ee la sakhiray bayna asamaa'i waalardi cirka iyo dhulka dhexdooda oo daruuruhu samada waa ka sokeeyaan imika samada labada samee aayadan lagu sheegay mid waa daruurahoo kullu maa calaaka fahuwa samaawaata hore min asamaa'ida hore tanna bayna asamaa'i
وتضبدي سمي كلا سرية أو تنصو سكيسة سماء الدنيا الله يرى يدلك تدحدو دعية ضروري كسوغي مركا والصحابي إيه ضروري وحكسوغا ضروري المسخر إلا الليلية لسخري بين السماء والأرض عركا يدلك دحدو دلقو الليلية وحكسوغا هي لآيات خبركي إن إنتا سودن سو سعودي وحاسو مخلوقات ووين دحدو دمان تود وحكسوغا لآيات آيات يا علامات ووين وإلهي وينديس يا واحد نمديس يا أودي صلى الله أقون صداق السجن يسوق السجين لقوم قلوا أي آيات كاسوق السجين قلا داسو يعقلون وحكلا جرنيا أي يوق السجيه ومن الناس ضدك وحكم إذا من دول باكم إذا يتخذ كيلنا من دون الله إلا سكدي أندادا كوا إلهي إلا السميان ويبربر دقيان كواسو يحبونهم أي أتعلانيان كحب الله إلهي جعيل كلا جعليهاي أو كلا كحب الله لبا تفسير بوا لغو فسر أي كحبهم لله يعني وحي سميسانيان أصنام أي إلهي لا سميان أي أتعلانيان سيدي ألا قالدي أتعليهين أو كلا ومركا وحا لغا دقايا كوان أصنام تسميست إلهي نوا جعليهين أصنام تودنا وا جعليهين لكن جعيل كي كدحيسيين أو siday sanam yani sanamyadooda u jecel yihiin oo kale ayaa allana u jeclaanayaan marka gaalnimada iyo shirkigoodu waa maxabadii alle ayay la maseeyeen maxabada asnaamta kaasi waa tafsiir waxa kale oo lagu fasiray ka xubbillaahi ay ka xubbil mu'miniina lillah waxay u jeclaanayaan asnaamtooda kuwa gaalada ah siday mu'miniintu ilaahay u jecel yihiin oo kuwan asnaamta samaysay iyagoo alle maba jecla asnaamtoodun bay jecel yihiin laakiin jacaylkay asnaamtooda jecel yihiin waxa ka weyn jacaylka muuminiintu allahooda ay jecel yihiin waayo maxabada muuminiintu waa khaaliso allay u baraxtiran tahay tooduna waa mid barxan amaba dee asnaamtooda unu baraxtiran boo ilaahay aan waxbaba ku lahayn wa min annaasi dadkii waxa kamida manduul baa kamida yatakhidu samaysanaya min duuni illaahi alla sokadii andaadan kuwa ay ilaahay la simayaan oy barbar dhigayaan kuwaasoo yuxibuunahum andaadaasooy u jeclaanayaan ka xubbillaahi ilaahay sida loo jeclaado oo kale ay u jeclaanayaan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayaa ashaddu daran xubban xagga jacaylka lilaahi alla ay jecel yihiin oo maxabaday muuminiintu alla u hayaan ayaa ka weyn tagaaladu andaadooda u hayso Allah waxa wari walaw yara haday arki lahaayeen alladina wixii dalamuu dulmiga falay idu xilli haday arki lahaayeen yarawna ay arkayaan alcadaaba cadaabka yani markay cadaabka arkayaan haday arki lahaayeen ama ogaan lahaayeen jawaabka lowda soo qadaro la calimu waxay ogaan lahaayeen anna alquwwata in awooda iyo quwwadu lillah allahuna ay sugantahay jamiican xaal ay tahay quwwadu dhammaanteed marka halka tafsiirun ku gaabso kale waqtiga inaga dhacay walaw yara haday arki lahaayeen alladina kuwii dalamuu dulmiga falay id xilli haday arki lahaayeen yarawna ay arkayaan alcadaaba cadaabka oo cadaabka u iman doona haday ka warhayn lahaayeen la calimu waxay ogaan lahaayeen anna alquwwata in awoodu lillah allahuna ay sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed awooda iyo quwadu iyo wa anna allah waxa kale ogaan lahaayeen in alle uu yahay shadiidul cadaabi cadaabkiisu mid u daran yahay id waqti haday arki lahaayeen idda hore ka bedel zaalimiintu haday arki lahaayeen id waqti haday arki lahaayeen tabarraa ay ka bari noqdeen alladina kuwii utubicuu la raacay waa madaxdii min alladina kuwii ay ka bari noqdeen ittabacuu raacay waa kuwii la duufsaday wal xaalna ay arki lahaayeen ama ay ka bari noqdeen raaw ay arkeen alcadaaba cadaabkii wal xaalna ay cadaabka arkeen taqattacat ay ka googooday bihim ay canhum iyaga xaggooda al asbaabu sababihii lagu xidhiidhayo dhan hadday saaxiibtinimo tahay hadday sokeeyanimo tahay hadday maxabo iyo jacayl kala tahay wax walba markay ka googo'een hadday taa arki lahaayeen u soo qadar jawaabkoo la raaw amran cadiima wax weyn bay arki lahaayeen oo culayskiisa aan la xamili karin
وقال waxay yiraahdeen alladina kuwii tabacuu raacay waa kuwii la duufsadeen madaxda daba galee waxay yiraahdeen law anna lana alla miyay noo sugnaato lowdani maanta waa bimacna tamani sida layta oo tii shardiyada ahayd ma aha law anna lana alla may noo sugnaato karatan hal mar oo celina mar uun miyaa adduunkiina lagu celiyo oo fanatabaraa marka aanu ka bari noqono minhum iyaga kuwan madaxday maanta naga bari noqday annakuna aanu ka soo bari noqonay kamaa tabarraw siday nooga bari noqdeen maanta minna annaga alla miyaa marun adduunka dibna loogu celiyo siday maanta nooga bari noqdeen annakuna aanu uga soo bari noqonay kadhalika yurihim allah waxa wuri kadhalika ay kama araahum shiddata cadaabihi wa tabarru'i ba'dihim min ba'd si jalaaleynku soo qadarayo sida ilaahay u tusay cadaabkiisa daran iyo siday u kala bari noqdeen siduu taa u tusay oo kale ayaa yurihimullahu ilaahay u tusaya a'maalahum amaladooda u tusinaya xasaraatin xaal ay qoomama ku tahay calayhim korkooda ay qoomama ku tahay wamaa hum manayaanin bikhaarijiina kuwa ka baxaya min annaari naarta xaggeeda yaa ayuha annaasu dadkiiyow kuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna fil ardi arlada dhexdeeda ku sugnaa xalaalan xaal uu yahay xalaal xalaasha oo tayiba wanaagsan oo walaa tattabicuu ha raacina khutuwaati shaytaani shaydaanka wadooyinkiisa iyo tallaabooyinkiisa ha dabagelin oo ha raacina waayo innahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay cadowga oo mubiinun ay bayinu lcadaawa cadaawadiisu ay caddahay inamaa yaamurukum wuxuu idin farayaa un shaydaanku bisuu xumaan ayuu idin amrayaa guud ahaan iyo walfaxshaa tafool xumada badan gaar ahaan sida zinada iyo liwaadka iyo wa an taquuluu inaad tidhaahdaan buu idin amrayaa cala allah ilaahay korkiisa ha ka tidhaahdaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn oo ilaahay u nisbaysaan wuxuu ka nasahan yahay taasuu idin farayaa wallahu aclam